السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا قيادة يوتيوب أنا سلامي عشان كان وحو كسابسي هاي سيدان أنا أسمي لهين ويل بيبر أما إيميج باك جراوند كلا أسمي الكمبيوتر هذا تاسو أسمي إنه السنة كلا أسميه رمضان كريم waxaan isticmaalnaa Adobe Photoshop CC6 marka cashada waxaan loogu talagalay dadka bilaawga Photoshop ku cusub inay ka faa'iideystaan. Marka haddii aad groupkan aan jacket ka dhigo waxaad u jeedaa inuu background-ka blue yahay. waxaan markii la saaro waxaad u jeedaa inuu yahay background oo wato iftiin bishii Ramadan Kareem. haddii aad aan u soo laabto masjidka tan ka qaado waxaad u jeedaa in wax dhan wax dul saaran ay yihiin layer oo dhan. marka waxaan dhan sida u sameynaysaa waxaa sameynaysaa sawirka kana masjidka aad soo jarnay. marka sida u soo jaraysaa sawiradan waxaad ka helaysaa Google ayaad ka soo qaadanaysaa. waxa leedahay masjid ayaad ku qoraysaa ama mosque intaba uu ku keenayaa kaardid ayaad kala bixaysaa. marka double click ayaad siinayna sawirkan si u qaadanaa. marka sida u qiraahaysaa bad marka qufulkan dragging ku sameey meesha recycle bingerna ku tuur. kadibna waxaad soo doorataa magic soo dooro. kadib meeshii banaanam ku door wuxuu sameynayaa in oo wixii isku kala isku aadiyo. kadibna delete taabo delete ku boobsi macnaha on si saxam u dooranayo laakiin wuxuu isku dooranaya wixii isku kala white ko kale hada isku qaadaya. laakiin masjidka waa noocyo badan ayuu ka samaysan yahay. sana tartiibtan u qaadana. kadib waxaad u jeedaa in meelo badan noo soo hareen. kadib waxaa sameynaynaa control D selected erase tool soo dooro inta banaan oo dhan titir inta banaan oo dhan iska tir. kadib waxaa kaloo sameyn kartaa control ka riix click sawirka dushiisa ku sii erase tool kana aad u weynayso wixii sawir banaan dhan uu ka jiro wixii banaan ka jiro dhan ayuu qaadayaa. kadibna waxaa sameynaysaa control D selection ama selection D selection waa dhigi kartaa sababta control D shortcut kiisa waaye. kadib waxaad sameyn kartaa control inta riixday click waa ku sii kartaa. kadibna background inta madow soo dooratid paint back tool soo dooratid kadib waad ku sameyn waad ku dhufan kartaa new layer ayaa dooranaysaa. kadibna madowga sidaas ayaa u dooranaysaa. kadib waxaad sameynaysaa deselect ayaa leedahay. marka deselect saas u dhaadid oo masjidka sidaas kugu qaado waxaa leedahay labada layer oo isku qabanaysaa. kadib waxaa leedahay control E ama right click merge layer ayaa leedahay. sidaan ayuu ku noqonayaa. markuu sidaan ku noqdo waxaa background ina soo new ayaa leedahay. kadibna waxaa leedahay meesha waxaa ka dhigaysaa 724 iyo meeshan 768 resolution kana u dhaaf 100. kadib 100 ka dhig haddii uu 72 ku yahay. kadibna okay ka dhig. markii okay naadid colorka ayaa tagaysaa. waxaa soo dooranaysaa 43339. kadibna waxaa leedahay okay ayaa leedahay paint back tool ayaa soo dooranaysaa. kadibna background ayaad ku dhufanaysaa. marka background ku dhufatid sawirkii ugu dambeeyay masjidka ayaa soo qaadanaysaa. waxaa leedahay move tool ayaa select ka sameynaysaa. kadibna waad jiidaysaa. saamka u qaadid inta ayaad keenaysaa. kadib waxaad u jeedaa masjidkii uu ku imaado. waxaa leedahay control T ayaa leedahay. kadibna shift alt ayaad qabanee dragging ayaad ku sameynaysaa si aad ula ekaysiisid. kadibna dhinacana ka jiid. kadibna waxaa leedahay unchecker ka dhig meeshaas. markii unchecker ka dhigtid kadib waxaa sameynaysaa markii masjidka la ekaysiisid new layer ayaad dooranaysaa. markaa new layer dooratid waxaa sameynaysaa waxaa soo dooranaysaa rectangle marquee tool ayaad soo dooranaysaa. inta awratay inuu iftiinka ka baxo ayaad leedahay. kadibna waxaan leedahay colorka ayaad tagaysaa. colorkii aa markaas u rabtay ayaad soo dooranaysaa ama white ama iftiin yar sida markii qoraxda sii dhacayso kale sidii markaas adiga aad jeceshahay. kadibna paint back tool ayaad tagaysaa. kadibna new layerka highlightkaas ku saarayan ayaad ku dhufanaysaa. kadib markaa ku dhufatid masjidka howshiisa ayaad gelinaysaa sida aa ugu hoos mariso. adana waxaa leedahay select D select ayaa leedahay. kadib waxaad tagaysaa
hadda waxaad u jeedaa sawirkii in uu meesha ka muuqdo marka wuxuu qofka isla yahay muxuu ka wadaa sidaan hadda meeshan yar masjidkan ku noqono eraser tool sababta meel waxa jiro sawirkii hore noo soo raacay control z su'aal waxaad ka dhigtaa mid caadi kadib sawirka markaa samaysid in meelaha yar oo ku soo raaco dhammaan inaad tartiibtaada iska tirtirtid maxaa laga baahan inaad samaysid waxaad tegaysaa feather ayaa tegaysaa kadibna blur hadana Gaussian blur ayaa leedahay oo masjidka iyo highlightkii saaran sidaas oo qalad ka imaaday waa inuu layerka aragtid inaad ka dhigtid 15 ayaa tegaysaa kadibna feather kadibna blur Gaussian blur ayaa leedahay kadibna si aad si fiican u aragtid inta aragtid ayaad ka dhigaysaa marka ujeedaa 15 ayuu noqday hadaarta gadaal ayaa u jeedi kartaa 15 yaro macquul ah inta aragtid kadib marka intaas ka dhigtid kan ayaad wax ku sameynaysaa haddii aragtid dhinacaas ha ka samaysid ama waxa ayaa leedahay haddii aad u baahan tahay inaad ku wada dheeraysid sidaas ayaad kan ayaad isticmaalaysaa laakiin waxaad ku wanaagsan sidoo dhinacan kale ka soo baxaba inaad enter dheh sidaad mataqaanaa ugu qaadid selectionka control z taabo sida duplicate ugu samaysid kadibna control t dheh sida transform u samaysid ama edit mayo transform tag kadib waxaa leedahay flip horizontal ayaa leedahay marka sidaas kaga soo qaadid waxaad samaynaysaa sidan ayaad u jiidaysaa waxaad ku samaynaysaa inaad rotation ku samaysid inta u ratay inuu ku noqdo ayaad tartiibtaada u qaadanaya kadibna sidaas ayaa ugu ballaarinay hadda markii labadii 15 waan subsanay marka haddaan kii hore ku laabano waxaa noo dhiman oo kelimahay tahay inaan marka hore sameyno bishii sida loo sameynayaa rectangle marquee tool boxkiisa ayaad furaysaa waxaad soo dooranaysaa elliptic marquee tool ayaa soo dooranay waxaad riixaysaa shiftiga dragon ayaad ku sameyn shiftiga wuxuu ku sahlayaa in uu koobabin ku sameeyo kadib dhinacan ayaad keensanaysaa ama dhinaca markaas u ratay markaad shiftiga qabatid oo koobabinta ku saxmato waxaad ka horkacaysaa muuska kadibna shiftiga ka kacay markaas waxaa sameynay alt haddana qabanay kadibna dragon labaad ayaa sameynaysaa space ayaa qabanay inta ratid ayaa ku qiyaasanaysaa inta aragtid markaa qiyaasatid maxaa laga baahan inaad samaysid muuska ayaa ka kacaysaa siduu kugu jaro gudaha kugu geliyo kadibna waxaad tegaysaa kalarkii markaasaa u rabtay white ka ahay okay ayaa leedahay paint backy tool soo dooro kadibna waxaad dhahdaa new layer soo dooro kadib layer markaa soo dooratid layerka waa inuu kor ku jiraa waxaa leedahay paint toolka gudihiisa ku dhufo kadibna waxaad dhahdaa select deselect kadibna kan waxaad ku samaysaa duplicate right click ku leh duplicate ku samee layer ama control j dheh okay dheh kadibna waxaad tagtaa feather blur Gaussian blur ayaad tegaysaa kadibna gudaha ayaad ruuxaysaa marka wax yar soo iftiimisid inta aad u rabtay adiga wuxuu ku sahlayaa inuu kaaga dhigo asadam iftiin u bedelo kadib okay ayaa leedahay kadib waxaad tegaysaa textiga ayaad tegaysaa marka textiga aragtay ayaad ku qoraysaa meeshaas inta adiga aragtay ayaad geysanaysaa oo u ratay qoraalka inuu ku noqdo kadibna qoraalkii aaratay kula camoonto baqeer ayaa sameynaysaa waqtiga uu sidaas noogu yar marka insha Allah biidna kale waxaan maleynayaa inay ka faa'iido doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran wixii su'aalana kuma ka soo qori kartaan assalaamu calaykum